lixsi ayaa sidaad arkaysaan dhinacayga bidix waxaa fadhiya waa jaamac faarax saleebaan oo loo yaqaano jaamac dheere. jaamac faarax waxa uu degan yahay in magaalada Linköping oo dhacda bartamaha wadanka Sweden ama koonfurta wadanka Sweden. jaamac wuxuu ka mid yahay muwaadiniinta Somaliland ee degan wadankan Sweden muddo dheerna deganaa. in jaamac dhinaca kale waxa weeyaan waa gudoomiyaha guddiga dacwadda ee magaalada tan Linköping oo runtii in dhinaca dacwadda islaamiga iyo dhinac walba idaabta uu gudoomiye u yahay. haddaba barnaamijkanan milicsi sababta aan jaamac ugu soo casuunay wax kale maaha isagoo stuudiyaha hadda telefishinka qaranku uu hadda inoo jiro meel 300 kilomitir ah ayaan waxaan ugu nimi magaalada Linköping oo runtii jaamacna uu si weyn ugu soo dhaweeyay. haddaba barnaamijkanan milicsi ayaan waxa aan ku doorbidnay jaamac inaan ka wareysano isagoo oo dhawaan ka soo noqday dalka hooyo muddo imika adigu ilaa dhowr isbuuc ka sokeeyay ayuu mataqaana wadankii uu ka yimi. runtiina waa sanadkan qurba jooga Somalilanderka ah ee wadankii tagay ama xagaagan sanadka 2013 inagoo ku guda jirnay imika bartamihii bisha Agosto ayaa waxa aan bal jaamaca jecelahay inaan ka wareysto waxyaabihii uu wadanka ku soo arkay maadaama uu yahay qof macquul ah oo looga qaateen ah. runtiina tabtii dadkeenu ama dhaqankeenu ahaan jiray meesha la maqlo ninba wadankii ka yimi in miyiga waxa dhici jirtay in safar loo galo si loo soo wareysto. haddaba safarkani oo ka yara casriyeysan iyo telefishinka qarankana aad naga daawanaysan ayaa bal waxaan jecelahay jaamac inaan ka wareysto waxyaabaha uu wadankii hooyo uu ku soo arkay in dareenkiisa guud markii uu tagay iyo in waxyaabaha uu markaa inooga sheegi karo in ay wadankii ay ka jiraan. waxaana leeyahay jaamac ku soo dhaw telefishinka qaranka Somaliland. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. walaal dalma waa dhowhay waana ku salaamaya waxaan kala salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed af Soomaaliya ku hadasha ee TV-ga qaranka Somaliland daawada gaar ahaan waxaan salaamaya shacabka reer Somaliland guud iyo dibadda. in jaamac bal horta marka ugu horeysa taariikh yar oo kooban waxaad naga siisaa wadankan Sweden intee baad deganayd? bismillahir rahmanir rahim walaal waxaan deganaa wadankan Sweden dalmarayaan muddo imika ka badan 20 sano. waxbaan ku soo bartay qayb ka mid ah waqtigayga. waxaan ka soo shaqeeyay ururo badan oo kala duwan hadii reer Somaliland iyo hadii kuwa islaamkaba. imikana waxaan ka shaqeeyaa wadankan Sweden. waqtigayga firaaqada aan leeyahayna waxaan runtii aan ku bixiyaa wixii maaragtay tabarucaada inaan ka shaqeeyo dacwadda islaamka qaybta Soomaalida ee gobolkan. sida aanu warbixinta barnaamijka hordhicisa in ku sheegnay waxa tahay muwaadin runtii ka tagay wadankan oo dhawaana tagay dalkii Jamhuuriyadda Somaliland. bal waxaad nooga warantaa horta ujeedada safarkaagaasi muxuu ku salaysnaa? walaal safarkii wax ku salaysnaa horta safarkiiska caadiga ah inaan macnaha wadankaygii hooyo soo eego iyo ehelkaygii oo degan halkaas. waxaan kaloo ku salaysnaa inaan carruurteyda soo baro oo halkan ku dhashay oo kuwa weynaaday qaarimka jaamacada ku jiraan inaan wadanka soo baro runtii arrimahaas ugu muhiimsanaa iyo inaan xogaal u soo noqdo nolosha wadanka iyo horumarka wadanka ka jira runtii. waxaan ognahay qurba joog fara badan inay sanadkan ay aad u tageen wadankii Somaliland. in markaad eegto sanadadii ugu dambeeyay waxaad moodaa dadkan qurbaha ku nool inay aad iyo aad ay ugu hiloobeen inay wadankii ama ay ku noqdaan ama fasaxya ay tagaan. maxaa sababay baad u malaynaysaa waqtiyadan ugu dambeeyay inay dadku ay aad ugu soo jeesteen sidii ay ama dalkii ugu noqon lahayn ama ay ugu noolaan lahayn ama fasaxyada fara badan ay ku tagaan intaba? waxaan oran karaa dalmar waxa sababay waxyaalo badan. waxa u saamaxay horta oo kowka ah oo farayaasha ah tigitaanka wadanka in la booqdo la tago nabadda. waxaanu haysanaa nabad aad u qiimo badan oo aad u ballaaran. dadka qurba jooga inay muddo 20 sano ama ka badan ama 30-40 sano hor dad baa deganaa halkan. dadkaas waxay ku noolayeen wadamo nabad ka jirto oo horumar ka jiro. marka waxay u hiloobayaan markay ogaadeen wadankooda in nabad ka jirto oo ay xaqiiqdii soo ogaadeen inay soo booqdaan wadankoodii. taas baa macnaha waxay noqonaysaa lambarka koowaad. lambarka labaad waxaa jira oo kale waxyaalo badan oo halkan ka jira ayaa ka jira wadankeena Somaliland oo dadku markii hore ay runtii ka shakisnaa islahaayeen malaha ka heli maysaa nolosha halkan taala mid la mid ah. marka qodobada iyo kuwa kala badan baa saamaxay inay macnaha dadku booqdaan imika wadankii. waana ku dhiiradeen oo way tagaan oo imika aad ba loo tagaa wadankeena sanad ka dambeeyo si badanaya. imika anigu waxaan joogay 2 bilood iyo week baan joogay wadankeena. inaan dhalay baa jeclaaday wadankeena sii joogo. aniga lafteedu waxaan jeclaystay inaan Ramadaanka ku Soomaaliya wada joogo laakiin waxaan waayay diyaarad aan soo raaco aan ku soo noqdo. macnaha halka waxa ka dareemaysaa in wadanka aad loo booqdo oo qurba joogto ay aad u tagaan wadanka. mudane jaamac haddaba su-aalihii aan ugu talagalay bal inay dadweynuhuna ay nala ogaadaan
wadankan Sweden baad degan tahay nolol fiican baad ku nooshahay, carruurtaadu nolol wanaagsan bay dadka yacni Yurub aad kaga nooshahay, sidaasoo ay tahay waxaad tahay muwaadin aad iyo aad u jecel inuu wadanka u ka warhayo noloshiisa. bal haddaba dad aada u tiro badan ayaa maanta maadaama aad tahay nin odayo oo wargaleen ah, maxaad ku soo aragtay dalkii Somalilan markaad eegta dhinaca horumarka? waxaan kusoo arkay walaal dalmar waxyaalo fara badan oo wanaaga ayaan waddankeena kusoo arkay oo xaqiiqa oo aan ahayn macnaha wax mala awaal ah. qofkuna markuu yahay qof muwaadin oo dhexdhexaada oo wargaleena warkiisa in la qaato way fiican tahay. sababtaan saawley waxa weeyaan dadkeenu runtii imika meelaha ay marayaan waxa weeyaan qofku markuu meelahan oo kale ka hadlo TV oo kale qof laga wareysto markiiba waxay isweydiiyaan qofkan waa xisbige, maadaama waddankeena xisbiye ka jiraan oo waxoogaa reerihaynu ka guurayay qabyaaladii. markaan xisbiyada waddanka ka jira saddexda xisbiya kama tirsani, dowladdana kama tirsani, waxaan ahay muwaadin caadi oo reer Somalilandera. marka saasaa warkaygu dhexdhexaad uu ugu salaysan yahay. marka waxaan soo arkay runtii waxyaalo badan oo wanaagsan oo la taaban karo oo ay ka mid tahay diinta islaamka iyo barashadeeda iyo sida looga ogayo waddankeenii, waddan 100% muslina oo kulligii sunniyiina. innaga dhibaatooyinka halka inaga haysta waxaa ka mid ah in maaragtay qofku marka uu albaabka gurigiisa ka baxo laba shay buu ka fikiraa: xageed ku tukan doontaa salaada waa qofka muslimka ah, iyo wax xalaal aad cunto ma heli doontaa markaad ka baxday gurigaaga. runtii taa lagama fikiro marka xaggaa la tago. waddankeenu waxa weeye 10 talaabo marka socotid masaajid baa ah, cunto ma xalaalba ma xaaraanba ana ka fikiri maysid. taas markaan ka gudbo oo ah barashadii diinta, waxaa soo raacda waxbarashada maadiga ah ee maaragtay waddanka ka socota oo aad macnaha loo casriyeeyey oo horumar badan inuu ka jiro, oo aad helaysid iskuullo maadigii iyo diintiiba ay ka wada socoto oo ilmahaaga aad ku aamini karto. waxaa ka mid a wanaagyada aan kusoo arkay waddankeenii nabadgelyada oo aad iyo aad macnaha nabadgelyo la isku halayn karo wanaagsan ay ka jirto waddankeenii. oo anigu meelo badan baan maray, safar badan baan sameeyey, 2 bilood ee dheer baan waddanka joogay. waxaan ka digay magaalada Berbera, airportka magaalada Berbera, waxaan tagay Hargeysa, haddana waan ka tagay Burcaan ka baxay 3 safar baan sameeyay, Burcaan kaga baxay oo ilaa xuduudka Itoobiya aan ku tagay anigoo gaarigayga wata oo macnaha wax cabsi aan jirin oo aan habeen soconaya waliba. haddana mar kale waxaan ka baxay Togdheer, waxaan qabtay galbeedka Buuhoodle oo runtii ay markii ugu dambeysay ay colaada ka jireen, laakiin hadda colaada kama jiraan. aad iyo aad baa loogu wanaagsan yahay, dadku way isdhex galeen. way jiraan weli waxyaalaha aan laga heshinin, laakiin nabad baa ka jirta halkaa lafteeda. oo Buuhoodle galbeedkiisa inta habeenimo ka soo baxay aan Burco soo galay 11 habeenimo anoo gaarigayga wata, carruurtayda wata. marka wanaagga aan ku soo arkay Soomaaliland waxaa ka mid ah horumarka kale marka laga yimaado nabadaas caamka ah. waxaa ka mid ah wanaag aan ku soo arkay runtii waxaa ka mid ah hawada oo kale. waddankeena hawo fresh ayuu leeyahay oo aanu lahayn caalamka kale kalama mid aha. halkayna waxa laga yaabaa in 4 jeer inuu dharka bedelo 4 jeer, laakiin halka hal shay un baad xidhnaanaysa haddaad doontid. innagu waxaynu bedelaa xilliga barafka waan bedelanaa, macalkabaha ninbaa maalin agteeda ku dhacay isagoo baraf ay tahay, markaasuu yidhi niyow maantaan soo bedelay taayiradii barafkaan bedelay. deetana waxaan ku uhi waxaad u dhacday sababta miyaad garanaysaa, adiguna taayiradii baanad iska bedelin. marka hawadeenna freshka runtii aad baan iyaduna aan uga helay oo wanaagay ka mid tahay aan waddanka kusoo arkay. waxyaalo badan oo aan la soo koobi karin baa runtii ka mid ah waxyaalaha aan kusoo arkay. waxaa jaamac nagu maqaalo ah markii aad tagtay deegaanadan iminka deegaanada Buuhoodle in aad runtii nabadgelyada aad qaadatay, in aad kala shaqayso dadka deegaanka. markaa ma waxaa jira goobo aad tagtay oo aan iyadoon ciidana dowladana aana ku dirsan, urur gaarana aana ku dirsan, inaad hor ilaahay ummadda walaalaha aad tidhaahdo oo dadka ku nool deegaanada runtii bariga Somaliland inaad kala qayb qaadatay nabadgelyada ood ugu baaqday in ay nabadgelyadu ay tahay shay qaaliya oo runtii inay ku wada noolaadaan, iscafiyaan, waddankana ay wada leeyihiin, halkana ilaahay uu ku abuuray. yacni arrinkaa bal waxa taariikh yaroo kooban naga sii, sidee baad uga qayb qaadatay nabadgelyada iyo sidoo kale inaad dadka aad ku wacdido inay dhiigga islaamka aanay daadin? bismillah, runtii waa su-aal wanaagsan weeyaan. maadaama anu halkaan ka shaqeeya xilliyada aan waqtiga aan haysto dacwadda islaamka, waxaa jiray walaal kale oo isaguna reer Sweden ah oo Stockholm degan oo aan israacnay. runtii qofku markuu waddanka tago dee inuu wuxuun uu qabto ama ummadda information siiyo ama uu wuxuun ka qabto intuu jooga fasax ku yahay xataa qurba jooga laftiisa waa ku waajib. diinta islaamkuna wayna faraysaa inuu qofku maaragtay uu wanaagana faro munkarkana reebo.
marka runtii waan tegey galbeedka buuhoodle anigu tegey ma wada tegin gobolka oo dhan dhinaca soke ayaan tegey degmo la yidhaha qurugud baan tegey runtii anigii walaalkaa kala israacnay 3 cisho iyo 3 habeen baan joognay runtii 3 cisho iyo 3 habeen aan joognay waxaanu ka shaqaynayno dowladnimada ma idin ururna ma idin runtii saa sheegtay laakiin labadaas xilqaanay waxaanu ka shaqaynay dadka aan wacyi gelino oo diinta islaamka ku wacyi gelino waxaan kaloo ka shaqaynaynay runtii maamulka ka jira halkaas waa meel maaragtay colaado ku dambeeyeen way ka dambeeyaan gobolada kale ee Soomaaliland runtii marka deegtid waxaan ku wacyi gelinay maamulka degan iyo dadweynaha runtii oo aan la kulanay inay horumarka ka shaqeeyaan oo ay nabadda xoojiyaan hadda nabad bay haystaan nabad bay ku wadaan labada deegaan galbeedka iyo maaragtay dhinaca kale ee buuhoodle marka runtii 3 cisho iyo 3 maalmood aan joognay waxaan ka shaqeynaa information aan dadka siino wacyi gelino oo ay dadku aqbalaan maamulka degmada oo runtii imika aad moodo inay bilaabayaan hawl fiican iyaga laftoodu laakiin doorashooyinku waa ka dhaceen degmadaas marka hawlahaas runtii waxay ahayn mutadawacnimo baan u qabanay 3 maalmoodna waan joognay si fiican nala soo dhaweeyay waxaan la kulanay runtii maamul kala duwan oo meesha jooga sida maamulka degmada ka booliska ka militariga iyo bulshada meesha ku dhaqan shacabka runtii waan la kulanay si fiican nala soo dhaweeyay runtii marka dadku ay idin arkeen yacni sidee bay idin aamineen runtii had iyo goor bulshadeenna way ku adag tahay marka la yidhaahdo qofkani hor ilaahay buu isaga socdaa toloma dowlad baa soo dirsatay qofkani ma ujeedooyin gaara buu leeyahay yacni bulshadan waxa weeyaan waa dad dagaal ay saameeyeen waa dad runtii maskaxiyan dhibaatooyin dad badan ay mataqaanaa isu mareen oo yacni la odhan karo wax daacadaba yacni may arag marka sidee bay idin aamineen dadka deegaanku in aydun dacwadda ay idinka aqbalaan runtii waxaynu aamineen runtii annagu waxaan nahay dad deegaanka u dhashay aniguna waddanka markasta waan tagaa waa dad aanu isnaqaano oo dee ma kala fogin runtiina wayna ogyihiin inaan anagu dowladna ku jirin siyaasiyiin aanan ahayn aanu nahay niman qurba jooga waxaa kaloo ugu mahadnaqaya dadka reer Somaliland dadka qurba jooga runtii si fiican loo soo dhaweeyaa waana la dhageystaa marka iyadoona la garanay inaanu deegaanka nahay iyo iyadoona la ogyahay inaanan siyaasiyiin ahayn oo aanan ku jirin ururo siyaasiyiin aan nahay dad madax bannaan oo maaragtay aynu arkay niman wadaadaaho dacwada socdo noocaas inoo aamineen runtii si fiicanna way noo dhageysteen si fiicanna way noo soo dhaweeyeen runtii sawiraan ka soo qaaday way jiraan laakiin hadda halkan kuma hayo runtii marka si fiican bay noo aamineen si fiicanna way noo soo dhaweeyeen waana garanayeen runtii markan aad tiri in dadkii qurbaha runtii aad bay dadku u soo yacni u aaminsan yihiin inay dee ay daacad ka yihiin waxan iyo dacwooyinkan ay wadaan markaad eegto ma odhan kartaa guud ahaan dalka Somaliland yacni inta gudaha joogta way kala daaloon isma indha buuxiyaan malaa intan qurbuhu waxa fursad ba halka uga soo baxday in iyaga la aamini karo runtii way jirtaa hadda horumarkan ka sheekeynaya iyo wanaaggan ka sheekeynaya runtii waxaad moodaa dadka guduhu inaanay aad u ogeyn laakiin aad marka dibadda ka tagtid waxaad arkaysaa barwaaqada meesha taala iyo nimcada taala iyo wanaagga yaala dad baan runtii uga sheekeeyey inay nimco tahay qoraxdu oo ay wax bini'aadanku u baahan yahay ay tahay oo laga helo fiitamiino kala duwan oo qofka bini'aadanka u baahan yahay hadduu waayana qofka bini'aadanka uu xargelayo xarku malaha waxaan manaya udub ku galaa waa reermiyi weeyaan markaan uga sheekeeyey dadkii way runtii si fiican bay i dhageysteen way arrintii way soo dhaweeyeen waxaan ku uri qoraxdan idinka idin dul taale kulaylka idinku haysaad leedihiin bahashu may soo dhacdo wayna gubtee annagu waa nala ka iibiyaa baan ku uri marka runtii dadku waxay kuu dhageysanayaan markay weji cusub arkaana way ku dhageysanayaan waxaa kaloo yar dadka gudaha jooga inay wax isu sheegaan information inay siiyaan taa waxaad moodaa dadkeena inay runtii culimadu way ka hadlaan runtii laakiin waxaad moodaa inuu inagu yar yahay wax isu sheegu marka waxaa aad loo dhageystaa ilaacadaha keliya sida BBC-da iyo inkastoo imika soo kordhay TV-ga qaranka aad loo dhageystay isaguna marka dadku way dhageysanayaan qurbo jooga markuu qofku yimaado qof cusub yahay dee runtii dad aqoon leh way tagaan meesha marka waa layna soo dhaweeyaa waa lana dhageystaa laakiin waxaan ku boorin lahaa dadku inay wax soo sheega badiyaan bulshada information badan bay u baahan tahay runtii dhinaca kale markaan eegno xaggii kolleyba dad badan baa xiiseynaya qurba joogu runtii dad aada u tiro badan ayay ku masruufaan dalkii $200 qaar baa $50 dira qaar baa $20 dira yacni markaad eegto dadka dibadaha wax looga soo dirayo iyo markaad eegto kuwa gudaha aan cid bini aadanoo wax u soo diraysa aanay jirin labada kuweebaa nolol fiican horta dee waxa la isbarbar dhigi kara maaha qof isbeelinayo qof la beelinaya way fiican tahay dee innaga dhaqankeena ah inaynu isku tiirsanaano isbeelino wax isa siino shareecada islamkuna ina farasa
laakiin laba la isbarbar dhigi kara maaha. qofka dhididkiisa maalaya gacantiisa ku shaqaysanaya ayaa wanaagsan runtii marka xagga laga eego. waxaana badan oo isku kalsoon qofka shaqaysanaya. runtii waddankeenana shaqa way taallaa, inkastoo dee shaqa la'aan ka jirto, laakiin haddana sida loo sheego maaha. marka leeyahay shaqa way taallaa waxa weeyaan horta qofka muslimka sidiisa maba shaqa beelaba, bilcamal maba noqdaba. waxa weeyaan cibaada ku sugaysa, reerkaaga baa ku sugaya, bulshadii baa ku sugaysa, waajibkii guud ee bulshada kugu lahayd baa ku sugaya. marka qofku ma camal beelo, laakiin dad badan baa shaqaysta, waddanka gudihiisa ka shaqaysta. waxa ugu badan laga shaqaystana waa bacmushtarka. dadku waxay eegaanuun dowladda iyo xafiisyada iyo hay-adaha. dad badan baa waxay ka shaqaystaan bacmushtarka. runtii waxyaalaha horumarka weyn aan soo arkin waxaa ka mid ah dadku siday u ganacsanayaan, siday u shaqaysanayaan, iyo siday dukaamada u buuxaan, iyo sida ay u socoto arrinta bacmushtarku. waxa weeyaan horumarka shacabku gaadhay aad iyo aad bay ugu ammaanan yihiin, wuu fara badan yahay. marka dadkaa walaal iyagu isbiile ee shaqaysanaya baa fara badan runtii ka badan kuwan la masruufayo. iyadana waxa aan ognahay inay aad iyo aad waddanku yacni uu xagga xoolaha nool uu ugu tiirsan yahay, oo uu yahay xoolaha nool laf dhabarta. dhaqdhaqaaq nooceeya baad dareentay? dadku miyigii miyay ka soo qaxeen oo magaalooyinkiiba isugu soo biyo shubteen, mise imika waxaad aragtay dad badan oo xataa reer magaalahoo xoolihii dib ugu noqday? bal xagga xoola dhaqashada oo ah laf dhabarta dhaqaalaha waddanka, iyadana maxaad xaggaa kusoo aragtay? waa su-aal wanaagsan weeyaan, waayo waa arrimahan uu ku horgalay baabay ka mid tahay. waayo anigu asalkayga riibiya ka soo jeeda, waxaan ku tala jiraa iminka lafteeda inaan xoolo iibsado, sababta waxaan arkay xoolihii oo aada u qaaliya. marka runtii safarada badan aan sameeyey, miyiga aan ku sameeyey, siiba gobolka togdheer aan 2 jeer ku noqday, hawdka sare oo baraacintan ka baxay, aan wadada maray qoryaala ka leexatay ilaa bildhig baan tegey. meeshaan reerkayga ugu tegey oo ka tirsan degmada bildhig, neefka xoolaha waxaa la kala siisanayay, ka aminka waxaa la kala siisanayay $50 ama $60. waxaan leeyahay daabaxa $50 ilaa $60 buu u dhexeeyey. ka aminka wanka yare aminka kulay dee aniga ila yaraa, laakiin dadka aad buu ula weynaa. waxaa la kala siisanayay $90 welina ma arag qiimo noocaas oo adhiga reer somaliland lagu kala iibsanayo. waxa weeyaan adhigeena maanta wuxuu yahay waa adhiyaha loogu jecel yahay ee wadamadan adhiga qaata, siba sacuudiga ugu jecel yahay. qiimihii ugu fiicnaan wuu marayaa. waxa dad badan ay ku fikirayaan imika inay xoolo dib u iibsadaan. runtii xoolihiina may dhammaanin, way joogaan. xagga horumarka haddaan ku yara noqdo, horumar badan baa waddankeena ka jiray. waxaa ka mid ah runtii maamul furfuran baa ka jiray somaliland oo aan xidhnayn, oo dadku maaragtay waxaa u caadaa afrikaanku inay dowladda iyo shacabku kala baqaan, oo ninka meesha haystaana oo runtii markii uu samaysto isagaaba cadow samaysan jiray, oo macnaha markasta ilaalo badan iyo waxaad moodaa dowladda iyo shacabka inay kala baqayaan. sida caadigan waxa weeyaan dowladda iyo shacabku waa isku mid, shacabkaana dowladda doortay, dowladdu waa fulintii shacabka u shaqaysaa. marka runtii dowladda ka jirta somaliland maanta waxaad moodaa in ay tahay dowlad furfuran oo dadka soo dhaweynayso, dadku aanay ka baqaynin. taas waan soo arkay. waxaan kala soo arkay waxaa la kala saari jiray wadamada islaamka ama geeska africa ama muslimiinta ama afrikaanka, waxaa la kala saaraa, ama kuwii ka jiray somaliland iyo kuwii soomaaliya ka jirayba, waxaa la kala saaraa diinta iyo dowladda mar kasta. halkaana mushkilad baa ka iman jirtay. dadku waa muslimiin 100%, marka haddii diinta iyo dowladdii la kala saarana halka cadaawad baa kasoo bixi jirtay. runtii waxaa kaloo ka faa'iidaysan jiray dadkan dhibaatooyinka ka sameeya wadamada islaamka ay yidhahdeen diin baan u dagaalamayna. kuwa laftooda ka faa'iidaysan jiro markay arkaan dowladdii iyo diintii isku cadowga bay waxay dad ka dhaadhiciyaan dowladda waxaan u hiilinayna diinta. runtii waxaad moodaa somaliland maanta dowladda ka jirta iyo diintu inay isku dhow yihiin oo ay wada shaqeeyaan, oo aad arkay sida culimadii reer somaliland waaweynaa oo dowladdii la talinaya, madaxweynihii oo la kulmaya culimadii, masaajidadii oo looga dawcaynaya dalka iyo dowladdaba. runtii taana aad baan ugu soo farxay. waxaad arkaysaa culimada waaweyn ee timaada waddanka dibadaha ka timaada aan somaliland darkaba ahayn, oo macnaha booqanaya madaxtooyada somaliland oo u ducaynaya dalka iyo dalkaba. taasna runtii waxyaalaha horumarka aan kusoo farxay bay ka mid ahayn. waxaa ka mid ahaa in dowladda somaliland inay furtay ilaacad qur-aanka kariimka ah. waa markii ugu horreysay aan arko ilaacad qur-aanka kariimka ah oo kaga jirta waddan reer somaliland. taas lafteed waa farxad oo 24 hours aad dhegeysanaysid qur-aanka kariimka ahaa. waa tahay runtii jaamac, inaga oo haatan soo galnay guntiga gabagabadii waraysigan, anigoo aad iyo aad kugu mahad celinaya fursadda qaaligeedna siisay. ugu dambeyntii talo, tusaale, baaq, yani maxaad kusoo gabagabeynaysaa waraysigan? bismillahi raxmaan runtii waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaan fariin u dirayaa shacabka reer somaliland dibad iyo gudaba. fariintaasuna waxa weeyaan nimcada iyo barwaaqada waddankeena ka jirta runtii in lagu fara adaygo oo laga shukriyo. haddaan laga shukriyin nimcada ilaahay dadku ka qaadaa. la in shakartum la asiidanakum
wala in kafartum ina cadaabi la shadiid buu ilahay qur-aankiisa ku yidhi marka waxaan soo jeedin lahaa nimcada aad haysataan runtii dee annagaa dibadda markaanu ka tagnay waddanka tagno nimcadu noo muuqataa runtii si fiican marka waddankeena nimca ka jirta diin iyo nabad iyo barwaaqo iyo horumar badan baa ka jira runtii markaa waxaan odhan lahaa ilaashada oo si fudud yaan laydinka qubin runtii waxaa jira dad shakhsiyaad baa iska dhici kara jira iyagu dana gaara leh ama danta guud tooda ka horraysiya marka kaasoo kale qofkaasoo kale inaanu maanaha khalkhal gelin nabadiina iyo horumarkiina barwaaqadiina waayo diinina ma jirayso haddaan nabad la helin horumarro ma jirayo marka runtii fariintan diraya waxa weeyaan reer somaliland shacabkiina guda iyo dibadba inaad meel uga soo wada jeesataan nabadda iyo barwaaqada iyo wanaagga aad haysataan waxaana ku samaysateen system aad ku heshiiseen oo tidhahdeen systemkaasaynu ku kala baxaynaa ku kala badbaadaynaa reernimadii iyo reerihii iyo qabyaaladii waad iska dhigteen system baa samaysateen la tartamayo oo nin waliba 5 sano uu madaxweyne ahaanayo laakiin ninka doonaya iyadoo 5 sano kii hore u dhammaanin inuu kursiga soo fuulo anigu runtii waxaan u arkaa fawdo marka maanta ma jiro nin reer ku shaqaysan karayo qasab kusoo gabagabeynayo jasaakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad umahadsantahay daawadayaal waxaa halkaa noogu dhammaaday waraysigii aan ka qaaday jaamac dheere oo degan wadanka Sweden magaalada Linköping waana barnaamijkeena milicsi waxaananu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo